بسم الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن شاء الله تعالى waxaynu ka warrami doonaa maqaasid alcibaadaat adunyawiya ama danta laga leeyahay cibaadaadka adduunyo ama fawaa'ida dunawiga ay leedahay. waxaynu naqaanaa arkaanu islaamku ama cibaadaadku waa aslan macnahooda koowaade loogu talagalay inuu yahay atacabud, in ilaahay loogu dhowaado subxaanah wa tacaala, ilaahay loogu mahad celiyo, dembi dhaafna lagaga dalbado. kaasi waa asalka cibaado kasta uu qofka muslimkii sameeyo. oo ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa cibaadaadkaba waxyaabaha laynoo saaray inay ka mid tahay inaynu ilaahay xusno una weynayno. aqimi الصalaata lidikri walitukabiru allaha calaa ma hadaakum walacalakum tashkuruun ya ayuha aladiina aamanuu ida laqiitum ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu tilmaamayaa salaad hadday tahy waxaa laydin salaada u oogabaaba la yidhi ilaahay xuskii daraaddeed. ramadaantii markii laga hadlay ilahay wuxuu yihi walitukabiru allaha calaa ma hadaakum. jihaadka marka laga warramayo waxaa la yidhi wadkuru llaha kaiira lacalakum tuflixuun. idan aslu alcibaadaat waa in ilaahay loogu mahadnaqo. oo nabigu calayhi salaatu wasalaam markii dembigiisa la dhaafay adduunya aakhiraba cibaado badan buu haddana sii samaynayey ilaa yaacaguha ay ka barareen oo ay caaisha ku tidhi ilaahay rasuulkiisiyo adiga dembigaagii hore iyo kii dambaba waa la dhaafay ma iska nasatid. wuxuu ugu jawaabay afalaa akunu cabdan shakuura, haddii ilaahay aniga dembigayga dhaafay miyaanan noqonaynin addoon mahadnaqa. marka waa inaynu ilaahay ku nidhaahno waad mahadsantay. waa marka koowaad cibaadaadku. waa marka labaadee waa طalab اlmakfira, waa inagoo dalbanayna in ilaahay subxaanah wa tacaala dembigeenna ku dhaafo oo aynu janno iyo nicmo ku helno, naarna kaga badbaadno. laakiin su-aasha aan rabo markaa inaynu isweydiina waxa weeyaan, cibaadadu markaa ma aakhirunba waxaanaad u tukanayso ee zako u bixinayso ee u soomayso ee u xajaysa ma faa'iide aakhiro la sugayuunba, mise adduunkanaynu ku dul nool lahay ayay waxtar ku yihiin? waxay leeyahay cibaadaadku raad buu dunida tan ku leeyihi, waxtar bay ku yihiin adduunkanaynu ku dul noollay. haddii aynu weyno waxtarkaas oo ay ka muuqan weydo, macnaheedu waxa weeyaan cibaadaadkeennaa khalal ku jira. cibaadaadkeenna ayaa maxay godoloolo leh. sidaa awgeed haddaynu waxoogaa qur-aanka dib ugu noqonno, wax badan baa ilaahay subxaanah wa tacaala kaga hadlayaa cibaadaadka iyo fawaa'idda dunawiga ay leeyihin. waxaan isku dayayaa kelimatu tawxiid inaan iyada ka tago mar gaara ka warramo, laakiin bal afarta kale inaan waxoogaa isdul taago. kow, haddaynu salaad soo qaadanno, ilahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa ina asalaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar waladikru llahi akbar. ilahay wuxuu inoo tilmaamayaa salaadu inay qofka ka reebto alfaxshaa waalmunkar, xumaha oo dhan, kiisa foosha xun leh iyo kiisa kaleba ee diinta iyo sharciguba dafireen ama diideen, inay salaadu reebto. taasi macnaheedu waxa weeyaan salaaddu waxay wax ka beddeshaa qofka suluugiisa, dhaqankiisa. qofka muslimka ah hadduu salaaddu salaad saxa oo tii la faray ay tahay, natiijada ka dhalata waxaa ka mid ah dhaqankiisa in wax iska beddelaan. walidalik ba qur-aanku wuxuu tilmaamayaa maalan, ilaahi subxaanah wa tacaala wuxuu ka warramayaa ina alinsaana khuliqa haluuca ida masahu sharu jazuuca wإida masahu اlkhayru manuuca ila almusaliin baa ilahay yidhi. ilahay wuxuu ka warramay bini aadamka siduu u abuuray. bini aadamka waxaa ka mid ah
khuliqa haluuca baa la yidhi waxa la abuuray isagoo mid haluuca ah haluuca waxaa la yidhaahdaa culammadu labadan aayadooda damba fasiraya bay yidhaahdeen ina alinsana khuliqa haluuca idaa masahu sharu jazuuc waxay culammadu yidhahdaan waxa weeyaan waa midka markay dhibtu qabsato argagaxa markaa dhibaata ku dhacdo wuu dawakhaa wuu argagaxaa wuu wareeraa waayo adduunka hadduu qofku u qaato inay adduunku wixii oo dhan uu isagu yahay la'aantiisa ama dhibtiisa ama mushkiladiisa wuu dawakhaa waidaa masahu alkhayru manuuca baa la yidhaha cagsiga haddii ay nicma haleeshana waa bakhiil gacan adag oo ku dheggan waayo qofku haddaanu aakhiro rumaysnayn haddaanu meel dambe uu rajo ka qaba aanay jirin sidaa tan baa ku dhacaysaa dabeetana ilaahay wuxuu ku tilmaamay sifadaa xun ee ah waa selfishnimo waa qof adduunka hadday mashaakil soo gaadhana naftiisu la weynto u warwarsan hadduu wax helana isagu isku koobayo oan gacantiisa furayn hadduu wax helana isagaa isku koobaya hadday dhibi haysatana wuu dawakhayaa baa ilaahay ku tilmaamaya dabeetana markii insaanka sifadaa lagu sheegay inuu leeyahay ayaa ilaahay wuxuu ku sifeeyey qaar iyagu sifadaa aan lahayn yacni qaar dhaqankoodu kaa ka gedisan yahi yaa u horeeya ila almusalliin baa ilaahay yidhi kuwa tukadaha markaasaa xagga dambena lagu tilmaamay kuwa salaadooda daa'imaynayeen sifaad doora inta lasoo sheegay taa macnaheedu waxa weeyaan qofka mu'minka ah ee dhabta ah ee salaaddiisu salaaddii saxda ahayd ay tahay ee sidii rabbi uu tilmaamay rumaysan ee wuxuu ku hadlaya garanaya ee suu tukanaya garanaya dhaqankiisa waxaa iska beddelaa arrimaha kan inaanu mashaakilku warwargelinin nicmaduna kibir gelinin ama keligii inuu noolaado inaanu u fakerin sidaa ogeed baa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa agtiisa waxaa lagu tilmaamay niman saxaabaa baa waxay ka warrameen waxay dhaheen ninkaa hebele habeenkiina wuu tukadaa maalintiina waxbuu yaro qaadqaadaa bay leeyihin tuganimaa la sheegayaa habeenkiina waa tukadaa maalintiina gacantiisu ma dhowrsanaa dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam sidaa aad sheegaysaan hadday jirto ninkan nin salaatuleyl u kacayo habeen tukanaya hadduu yahay salaatuhu satanhaaha buu nebigu ku yidhi salaadiisaa ka reebi doonta yacni tanun ha la hubiyo inuu yahay nin habeenkii intuu soo toosto salaad tukanaya hadduu yahay waxau nebigu tilmaamayaa dhaqankaas iyo waxaanay sheegaysaan isma qabatee salaaddiisa ayaa ka reebi doonta markaad qur-aanka dib ugu noqoto waxaa ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamaya salaaddu inay tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee nolosha mashaakilkeeda loo adeegsada in lagaga hortago mathalan nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay risaaluu saaray risaalaa loo soo diray waxyaa loo sheegay waxyigaa waxaa la faray dunidoo dhan inuu waajaho ka hortago waxaa la faray inuu dunida maxay inuu ka hortago beddelo adiga haddii lagu yidhaahdo dunida beddel maxaad samayn lahayd hada alkown kullu basharka dul saaran adaa lagaa rabaa inaad beddesho waxaad odhan lahayd project plan baan u baahanayaa dhaqaale intaa leeg dad intaa leeg aqoon-yahano intaa leeg ciidamo intaa leeg waxa intaa leeg marka waxaa isla helo ayaan maxay ayaan projectkaa fulin karaa inaan dunida wax ka beddelo laakiin nebiyullaahi moxamed ilaahay wuxuu u tilmaamay warkaa culusna waan kuu sheegayaa waxaad adeegsanaysaana waa kan maxaa lagu yidhi yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi warattil alqur'aana tartiila inaa sanulqi calayka qawla haqiila ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu waط'an wa aqwamu qiila ilahay wuxuu ku yidhi war kan isduuduubayow kan isdadayow kac baa la yidhi habeenkii intiisa badan kac oo tuko nus gaadhsii ama wax yar ka yaree ama ka badi laakiin wakhti badan tuka baa la leeyahy maxaa wakhti badan inuu tukado loo faray ilahay wuxuu leeyahay
innaa sanulqii calayka qawlan thaqiila war culus baanu ku faraynaa. warka culusa la faraya waa waxyiga kan, waa qur-aankaa ku soo degaya. qur-aankaa qaad baa la leeyahay oo dadka oo dhan ka hortag. muctaqadkooda iyo siyaasadooda iyo dhaqankooda iyo dhaqaalahooda iyo say u fikerayaanba dunida beddel. adaa lagu soo diray inaad dunida beddesho. laakiin waxaa looga dhigay zaad markaa. waxaa sahay looga dhigay. project plankiisaasi wuxuu ku fulin lahaa waxaa looga dhigay inuu rabbigii ku xidhmo oo badiyo xidhnaantu alle ku xidhan yahay. habeenkii in badan ka cotuka baa la yidhi. yacni goormay aayaddani soo degtay? waxay culamada qaar ku tilmaamaan inay tahay suuraddii saddexaad ee qur-aanka soo degtaa. yani waxaa ka horreeyey baa la leeyahay iqra bismi rabbik iyo yaa ayuha almudathiru, dhowrka aayadooda ugu horreeya. kadibna aayaadkan baa soo degay bay culamadu qabaan. waxaa la isku waafaqsan yahay saddexdaas suuradood iyo suuratu nuun qaybteeda hore, afartaa qaybood inay yihiin afartii qaybood ee ugu horreeyey qur-aanka soo degay nebi maxamed ku soo dega calayhi salaatu wasalaam. idan nebigu wakhti loo tilmaamayo inuu dunidoo dhan ka hor tago, la leeyahay qowl culus baa laguu dhiibay, ayaa waxaa la farayaa waxaasoo dhan waxaad u adeegsanaysaa kaga baxaysaa xidhiidhkaad alla leedun inuu xoogoobo oo ah salaad badan inaad tukato. yacni dadku waxay moodaan salaadan shanta ah weeyaan tii micraajka la waajibiyey. laakiin salaaddu markii islaamku yimiba waa joogtaa. waa waxyaabii ugu horreeya soo dega. laakiin shantan wakhtiya la tukanayo ayaa waxaa la waajib yeelay maxay? leylat almicraajka. sidaa awgeed waxaynu arkaynaa inay tahay mashaakilka bini aadamka ka hor yimaadee culays kasta leh waxaa loo adeegsaday lagaga baxaa inuu salaadu ka mid tahy. walidalik baa ilahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dhowrkii sannadood ee ugu horreeyey diinta wuxuu u sheegayay hoos hoos. dadka qofkii caqli leh ciddii uu filaya inay wax qaban karayso dad buu gaar ula hadhadlayay. mar dambea ilaahay qur-aanku soo dejiyey laleeyay fasdac bima tu'mar waacrid can almushrikiin ina kafaynaaka almustahzi'iin aladiina yadcuuna maca allahi ilahan aakhara fasawfa yaclamuun. ilaahay wuxuu ku yidhi fasdac bima tu'mar waacrid can almushrikiin. kor ugu dhawaaq waxaanu ku farray baa ilaahay faray. nabiga calayhi salaatu wasalaam hoostan iyo warkan aad dadka gaarkaa la hadlaysa ka bax. iclaan muuji, sheego waxaanu kuu soo dhiibnay. dadka oo dhan khalqiga oo dhan ka hortag. dabeetana waa ku cuslaatay. gaaladii iyo dadkii way ka hor yimaadeen. wixii rumeeye waa la ciqaabo oo la cadaabay. ilaa xad maalan siiradu waxay sheegaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam carabtii hore suuqyaa jiray ay xajka iyo isugu iman jireen. markay isugu yimaadaan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam u tegi jiray isagoo raba inuu diinta u sheego. adeerkii baa daba socda. adeerkii ruma ayaa daba socda oo leh kan yari waa inankayagiiyo waa been wuxuu sheegaya waxba kama jiraana iskaga taga. ka warran haddii adeerkaa lagu daba dhigo meeshaas taagtaba adeerkaa intuu iskaa daba taaga u yidhaahdo waxba kama jiraan waxaanuu sheegayo. waa nabi maxamed adeerkii ruma kan daba socda abulahab ayaa daba taagan oo leh waxba kama jiraan waxaanu sheegayo. waxaasoo culaysaa haysta. saxaabadiisii waa la ciqaabayaa. isagii waa laga hor yimi. dunidana ilaahay beddel buu ku yidhi. dabeetana ilaahay wuxuu ku yidhi waa la caayaya waxbaa laga sheegaya. ilahay wuxuu leeyay walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun. waa ognahay baa ilaahay yidhi subxaanah wa tacaala inay laabtaadu cidhiidhiyoomayso waxay kugula hadlayaan ama ilaahay waxay ka sheegayaan. ilaahay waxay ka sheegayaan iyo rasuulka waxay ka sheegayaan iyo diinta waxay ka sheegayaan. yacni iclaamku saasuu u badnaa mar kastaba. bini aadamku waa bini aadamkanuun. wasaa'ishan la adeegsaduunbaa horu martee bini aadamku waa sidiisii. sidaa maanta laysu dacaayadaynayo laysu maagayo maxaad u malaynaysaa dacaayaddii nebi maxamed lagu hayay inay dadka badh laga dhaadhiciyay inuu waalan yahayba. saxaabi baa nebiga u yimi oo ku yidhi isagoo aan islaamin dadkan dadka wax ku akhriyaan oo waxbaan tufaa adna waxaan maqlay waxoogaa inay kaasi yihiin dee maxay kula tahay buu yidhi haddaan wax kugu akhriyo. yacni waa nin isla ninkan ugu waalan yahe dawe
oo u socda inuu wax ku akhriyo. dacaayaddu xadkaasay gaadhay in la yidhahdo waa majnuun iyo ilahay qur-aanka muxuu ku tilmaamaya yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru innaka lamajnuunun bay lahaayeen. war kan le waxyaa laygu soo dejiyow war wad waalantay bay yidhahdeen, waxbaa kuu dhinmay, idina uu kuma waxyoonin, waxna maad arage buufis baad qabtaa wasla hadashay un waxbaad ismoodsiisay. nabiga calayhi salaatu wasalaam saasaa loo caayayey, loo maagayey, looga hor yimi. ilahay markaa wuxuu ku yidhi walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin. ilaahay wuxuu ku yidhi waa ognay in laabtaadu cidhiidhiyoomayso waxa lagaa sheegaye maxay samee, maxaa dawa ah, muxuu cidhiidhigan naftu haysata kaga baxaya? tasbiixse baa la yidhi adigoo ilaahay mahadnaqiisa ku dheehaya subxaana allahi wabixamdi adigoo leh, oo wakun min asaajidiin baa ilahay yidhi kuwa sujuudayana ka mid noqo, kuwa sujuudaya ka mid noqo, wacbud rabbaka xataa yaatiika kal yaqiin. ilaahay wuxuu u tilmaamaya markaasi waxaa problem kaa hor yimaadoo dhan waxaad u adeegsataa salaadda u adeegso. sidaa ogeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka ka sugan waxa uu tilmaamayaa idaa xasabahu amrun fasca ila asalaa. hadday wax nebiga warwargeliyaan, hadday murugo geliyaan, hadduu dhib la kulmo salaadda dhankeedu u carari jiray. yani hadday mashaakil qabsado fasca ila asalaa. saasi daraaddeed buu bilaal tilmaamaya inuu nebigu odhan jiray arixnaa biha ya bilaal, xadiidkii abi daawuud isna saxiixa. arixnaa biha ya bilaal, war bilaalow inoogu raaxee. idan salaaddu waa cibaado ajar lagu raadinayo, janno iyo aakhiro lagu raadinayo. yes kaawayt waxay kaloo tahay waa cibaado la raba adduunka iyo problemkiisa in loo adeegsado, adduunka iyo qofka mashaakilka haysta inuu u adeegsado. walidalik baa ilahay qur-aanka wuxuu inagu leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu biالصabri wالsalaa waاstaciinuu biالصabri wالsalaa wainaha lakabiiratun ila cala alkhaashiciin. labada aayadood ee suurat lbaqara ku jira ilahay wuxuu leey war kuwa iimaanka laga helayow istaciinuu biالصabri wالsalaa, arrimihiina waxa u kaalmaysataan sabir iyo salaad baa ilaahay leeyahy. mashaakilaadkiina adduunyo iyo waxa mashaakil idinka hor yimaadoo dhan war waxa u kaalmaysataan baa ilaahay leeyahy biالصabri wالsalaa. laynama fareen oo laynama yidhaahdeen u kaalmaysta haddaanay wax ka taraynin. waxay leenahay marka salaadu dhaqanka qofka waxbay ka beddeshaa, dhaqanka qofka waxbay ka beddeshaa, akhlaaqiyaadkiisay beddelaysaa, waxay xoojinaysaa xidhiidhku ilaahay la leeyahy, waxaa fududaanaya mashaakilka kaa hor yimaadoo dhan. qofka bini aadamkaahi asliyan hadduu rumaysan yahay sanad xooggan inuu ku tiirsan yahay wuxuu u haystaa wax walba inuu qaban karo. haddaad rumaysantahay cid kaa dambayso oo xooggani inay jirto, qofka rumaysan inuu rabu samaawaati walardi ku xidhan yahay oo ishortaagayo oo maalin kasta wax weydiisanayo la hadlaya. idan waxaynu leenahay cibaadatu salaa waa inay dhaqankeenna iyo suluugeenna iyo behaviorkeenna saynu u dhaqmayno iyo saynu wax u qabanayno iyo saynu wax u arkayno ee nolosha adduunyaa waa inay wax ka beddeshaa. innagana waxaaba laga yaabaa inay iyaduba culays baynugu tahy. salaadda inaga saar iyo salaadda inaga rid iyo salaadda inaga reeb midhan, yani kaanama mashaakil iyo culaysku saaran uu yahay oo aad dhan isaga dhigayso. ilaahayna wuxuu ina leeyay war adeegsada iyada kaalmaysta. maalan zakaa layna faray, nacam aakhiro iyo janno iyo gufraan dunuub iyo ajaro waaweyne waa ku soo arooreen. laakiin ilahay wuxuu leeyahy khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum watuzakiihim baa la yidhi. waxaad ka qaadaa sadaqo, zakawaad ka qaad. maxaa looga qaadayaa? litathiiri nufuusi wa taskiyatiha, in nafta lagu daahir yeelo o lagu nadiifiyo ayaa looga qaadaya. nafta in lagu daahir yeelo, kow in naftaada aad ka daahir yeesho bakhaylnimada iyo shaxiixnimada iyo keli noolaanshiyaha iyo selfishnimada iyo anaaninimada, waxaasoo dhan inaad ka daahir yeesho. maxay? wax kastoo xumaa ah. waxay kaloo tahay oo nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam tu'khad min aghniyaa'ihim
wa turaddu ilaa fuqaraa'ihim waxaa laga qaadaa buu nebigu yidhi dadkooda wax haysta oo waxaa loo celiyaa maxay dadkooda aan waxba haysanin macnaheedu waa maxay waa in bulshada muslimka ay hesho waxaa loo yaqaano atakaaful alijtimaaci isku filaanshiyo waa inaan bulshada qof baahani ku jirin innagu sidan aynu u isticmaaleen midhamidhayntan iyo waxa kani waynu sii macno tirray laakiin sekadu waxay ahayd institution dhan oo islaamiya oo si gaara wax looga qaado waxaa laga yaabaa inaad tidhahdo oo zakadu miyay ku filantay waxay yidhaahdaan usuulu zakaat sida loo qaado iyo midbaa wuxuu isbarbar dhigay iyo cashuurta waddanka maraykan u qaado haddii nidaamka zakada loo qaado buu leeyahay cashuurtana loo qaado cashuurtu waxay noqonaysaa buu leeyahy 3% haddii nidaamka zakada loo qaado zakaduna waa imisa 2.5% weeyaan almost dalka maraykan haddii zaka laga qaado wuxuu ku dhow yahay cashuurta laga qaado de laakiin waxaa kala gedisan labada system oo cashuuruhu inta badan wax mahaysatada laga qaadaa wax haysatadana lagama qaado soo saa ma ogedin cashuurtu masaakiintiina kani maxaa bixisaan 40% 30% 35% waxaasaa dadkan xoogsatadii bixiyaan dadka wax haystaana maxay bixiyaan waxay bixiyaan 10 bilyan buu haystaa waxaa la leeyahay inkamkaaga sanadkani muxuu ahaa 2 milyan 2 milyan baa cashuurta laga qaadaya 10kan laga qaadi maayo 10kaa marka lagu sii darana sanadka dambe 2diina laga qaadi maayo cashuur kan baa laga qaada waxa mar la cashuuro mar dambe lama cashuuro laakiin zakada see loo qaadaa dee 10ka iyo 2da kuu soo kordhayba isku daro intoo dhan baa 2.5 laga qaadaya marka imka systemka dunidu cashuuraha u qaadiya waxa kani inta badan wax haysatada waxaa laga yaabaa kamberiga ugu weyn in la yidhaha intaana investment buu geliyay intaana saas u yara intaana cashuurtiisu volfa laga yaabaa cashuurteedu inay 0 noqoto miskiinkaaga kana waa 30% ama waa 35 yani systemka loo dhigay waa system ninka wax haystaa dee dejiya qaanuunka ilaa idinkuma dejisaane masaakiintana waa la raraa shareecadu qaabkay u taallaa waxa weeyaan zakawaadku although ay yihiin 2.5% laakiin waa 2.5% usuushaadoo dhan laga qaado xoolahaad haysatoo dhan inta laysku daro ayaa 2.5% laga qaadaa haddii sideeda loo qaado oo systemkii loogu talagalay loo bixiyo dadka qof faqriya laga dhexeli maayo malaa dadku tusaalehay wax ku gartaan idiin soo qaban maayo tusaalo qarnigii koowaad ama labaad ama saddexaada waayo waxaa odhanaysaa berigaa dadkaa yaraa iyo berigaa aan hadda idiin soo qabto tusaale ah oo weliba dadka soomaaliyeed ah nin dhakhtaroo soomaaliyeed ayaa tolkii u tegey dabeetana wuxuu yidhi waxaan rabaa reerka inaan qof faqiir aanu yeelanin waxaan rabaa buu leeyahy reerka inaan qaadno zakada ururinno dabeetana aan bixinno reerkii badh waa aqbaleen badhna waxay yidhahdeen war mala waxaan suurtagal maha qaybtii aqbashay odayadoodii buu saaray calaa kulli xaal zakadii buu ka ururiyey dabeetana wuxuu yidhi waxay ii soo qortaan reerka wixii faqiir oo dhan wixii faqiirka ahay oo dhan baa liiskoodii la keenay sanadkii koowaad qayb buu siiyey lacagtii waxaanu yidhi sanadka dambe waa inaad zaka bixis gaadhaan ma aha 10 shilin maaha waa ninku xoolo u dhaqan karo sanadka dambe zakaysna uu bixin karo muddo yar markuu waday qabiilkoodii oo dhan ma jiro qof zaka qaataa waxay noqotay zakada reerku intuu ururiyaan reeraha kale la siiyo waayo reerkoodii waa wuxuu gaadhay maxay xaddul kifaaya buu gaadhay qof zaka u baahanay kuma jiro maaha tusaale aan ka keenayno qarnigii labaad iyo koowaad iyo waa hadda iyo soomaaliyadaa baabaasanay caynkaa weegaa taqaaniin ayuu wuxuu ka dhigay reerkoodu inaanu noqonin dad zaka wada bixiya inay noqdaan oo qof aan zaka bixiniba inaanu reerka ku jiri karin idan waxaan leenahay zakadu dhan waa cibaada ilaahay loogu dhowaanayo dhanna waa takaaful ijtimaaciya waa qaab loogu talagalay bulshada in faqriga lagaga saaro waa xoolo laga qaadayo dadka wax haysta oo la siinayo maxay dadka aan waxba haysanin la siinayo waxaan leenahay markaa nolosha raad bay ku leedahay waxaan leenahay marka soon la tago hadaynu zakada nidhi ilaahay wuxuu leeyay kay laa takuuna
si aanay xooluhu u noqonin kay laa yakuuna duula bayna alaghniyaa inta waxhaysato qudhuna inay xooluhu ku dhex warwareegina in dadka kalena la gaadhsiiyo. soonku dhaqanka qofka waxbuu ka beddelaa, caafimaadkiisa waxbuu ka beddelaa. dee caafimaadka kollay badda idinku reer suudan baa tiina waa inay idinku ugu aqoon badan tihin soo maaha. nobel bricekii 2016 ee medicinka iyo human anatomiga maxaa lagu qaata 2016kii? soom baa lagu qaata. nin u dhashay waddanka jaban yoshinori osumo la yidhaahdo, brofessorkaasi baa qaatay nobel bricekii medicinka, waxaanu ku qaatay soonka. wuxuu ku qaatay waxay qolada biologigu u yaqaaniin autophagy. waa system jidhkeennu rebering buu sameeyaa. jidhkeennu isagaa dib isu kabo isu rebeer gareeya. marka laba system baa jira oo unuguu sameeyo oo qaabkuu dib isugu sameeyaa. haddaynu aragti guud ka bixinno waxay tahay, maalan haddaynu gaadhi ka soo qaadno, gaadhigu hadduu kharaabo maxaa la sameeyaa? haddii uu kolba aad samayso oo cilladoobo marka dambe waxaad tidhahdaa warkan dhaqaalaha gelaya waxa ayaa ka badanba samayntiise tuuro mid cusub iibso. socanka maaha. system jidhku wuxuu leeyahay system odhanaya unuga marka inputkiisu ay ka badato outputkiisa, energyga iyo wuxuu isticmaalaya marka uu ka bato shaqada uu qabanayo, waxaa la yidhahaa unugan ha laga takhalluso, waa la dilaa. dabeetana markuu unugaas gaboobay ama tamar darreeyey ama cayn ka noqday la dilo, inta la furfuraabaa sbeer baad laga dhigaa. jidhka haddana dib uu isticmaala. qayb labaad baa jirta oo ah haddii unuga wax ka midi cilladoobaan, maalan gaadhigii aad wadatay baatarigaa fadhiistay, maxaad samaysaa? ma gaadhigaad tuurtaa mise waxaad tijaabisaa inaad baatariga ka tuurto oo baatari kala geliso? autophagy systemku wuxuu sameeyaa unugu marka qaybay cilladowdo, qaybta cilladowday buu ka tuuraa, dabeetana waa loo rebeer gareeyaa. qaybtii la tuurayna dib baa loo burburiyaa, dabeetana waxaa laga dhigaa wuxuu isticmaali karo jidhku. idan waxay leeyihiin systemkaasi inuu si xooggan u shaqeeyo, waxyaabaha kiciya ee dib u soo qaada waxaa ka mida bay leeyihin soonka. haddaad soonto bay leeyihin systemkan shaqadiisaa fiicnaanaysaa. dadmiins waxay leeyihin haddaad rabto inaad dhallinyaro noqoto soonka badso. haddaad rabto bay leeyihin inaad hore u gaboobin soonka badso. haddii jidhku ku yaro duuduubmo bay leeyihin oad rabto inuu kuu kala baxo waxba tajmiilka ha tegina soonka badsay leeyihin. yacni kullu dalik waxay leeyihin waxaa tari kara soonka. waa soon sideeya markaa. awal waxay odhan jireen cunada iska daayo, liin macaanta cab, waxaan iska daayo, biyaha cab, waxaan iska daayo. wuxuu leeyahay brofessorkaasi waxa ugu fiican 16 saacadoodna inaad soomanaato 8na wax cuntid. 16kaa saacadood ee aad soontee sida rasmiga aad u soontay bay leeyihin unugyada liitaa way dhimanayaan. unugyada awalba tamarta daraa shaqada way ka baxayaan. kuwa systemkanna waa la kicinaya, waxyaabaha kiciya gaajadaa ka mida bay leeyihin. systemkanna waa la kicinaya. systemkaasi markaa wuxuu samaynayaa inuu wixii unugyada liitaa ama ribeerka u baahan labada shaqaba inuu qabto. taasi waxay keensanaysaa bay leeyihin haddaad caafimaad rabto soonka badso. weliba ra'yigiisu wuxuu yahay waxa fiican bay leeyihin toddobaadkii inaad 2 maalmood soonto. shareecadu maxay qabtaa? toddobaadkii maxaa laynagu yidhi? waxaa idiin sunno ah inaad soontaan maxay? isniin iyo khamiis. gaalka jabaniiskii wuxuu leeyahy waxaa fiican toddobaad kasta inaad 2 maalmood sidaasi yeesho. waxay leeyihin haddii kale inaad bil isku bixiso bay leeyihin. ciddaan labadan soomaynina maxay soontaa? bil bay soontaa. idan waxay leeyihin soonku kow iminka waxay qabaan soonku inuu yahay waxyaabaha ugu waaweyn ee caafimaadka laga qaado. waxyaabaha ugu waaweyn ee qofka caafimaadka qaba caafimaadka u kordhiya. dad badanoo xanuunsanayana xanuunada ay kaga takhallusi karaan. ilaa xad ay hadda tijaabooyin wadaan ah
haddii soonka loo badiyo dadka kasar ku dhaca ama waxaana ku dhacaan ma ka bogsan karaan aaraadaasa hadda taalloo la wadaa nin caalima muslima wuxuu qoray kitaab la yidhaha mucjisatu siyaam dabeetana waxaan sidhi buu yidhi war kitaabkii dib u cusboonaysii bal hadda buxuusta soo baxday eeg 3 sano gudahood buu leeyahy 900 oo research oo cusub oo jaamacaadka dunidu sameeyeen baan helay buu leeyahy oo ku saabsan soonun ka warramaya waxay leenahay markaa soonku caafimaad ku hagaajiyaa wuxuu kaloo hagaajiyaa dee dadka dhaqankooda oo dhan oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahy man lam yadac qawla azuuri waalcamala bihi qofkaan iska daynin beenku hadalka iyo ku camalfolkiisaan iska daynin ilaahay baahi uma qabo gaajadiisa buu nebigu tilmaamaya macnaheedu waa maxay soonku waa training la rabo inaad gasho oo intaad trainingkaa ku jirto in noloshaada wax iska beddelaan maxaa iska beddelaya masale nebigu wuxuu leeyahay haddii lagula dagaalamo waxaad tidhaahdaa maxay innii saa'im waxaa la rabaa 11 biloodoo kale sidaad u dhaqmi lahayd inaad trainingkan u gasho ninka askariga ah markaaynu rabno inaynu qof askari ka dhigno maxaa la sameeyaa maa la wacdiyaa mise waa la tababaraa haddaynu ka warran waxbaanu kuu sheegaynaa dagaalladu waa wax adag waa la haraadaa waa la gaajoodaa dagaal baad geli doontaa dee waa inaad markaad dagaal gasho nin raga noqotaa sidaa nin ragga ma ku noqonaya bay kula tahay maya waxaa la gelayaa training dhab ah waxaa la geeyaa duruuf gaajo iyo haraad iyo buuro iyo waa la soo ciqaabaa si uu u barto adkaysiga ah hadhow markuu nolosha ka qayb gelayo ama dagaalka dhabta ah markuu galo inuu noqdo maxay qof adag ramadaanku iyo cibaadaadku noocan oo kale ay ka tirsan yihiin waa training qofka la siinayo oo sanadkii mar uu gelayo oo kadib la rabo 11 biloodo kale isagoo bartay dulqaadka isagoo bartay waxbixinta isagoo bartay cibaadada isagoo bartay isku xidhnaanta waa midnimada muslimiinta wax tilmaamaya caalamulislaami oo dhan ama dunidoo dhan waxay joogeen muslimiin inay mar qudhana wada soomaan mar qudhana wada afuraan bil qudha soomaan bil qudha afuraan idan waa wax isku xidhaya dadka muslimiinta ah waxaan leenahay waxaa layna faray oo maalan arkaanteenna ka mid a maxay xajka ilaahay wuxuu yidhi liyashhaduu manaafica lahum markii nebi ibraahim la yidhi dadka ugu yeedh ugu baaq waadin binnaasi markii la yidhi dadka ugu yeedh xajka waxaa la tilmaamay inay iman doonaan iyagoo mid bog laalan iyo mid kalaba fuushan iyo mid lugaynayaba maxaa loo imanaya xajka koowaad markaynu ka nimaadno jaanibkii cibaadada ah waxaa la yidhi liyashhaduu manaafica lahum inay soo xaadiraan manfaca maxaa ka mid ah mid dhaqaalaa ka mida mid siyaasadeed baa ka mida mid akhlaaqiyeed baa ka mida mid wax kastoo ay noloshu leedahay xajku wuu koobaa kow waa meel loogu talagalay in caalamulislaami oo dham isugu yimaadaan xajku waa cibaadaadka la ogol yahay in tijaaradana la sameeyo oo fii suurati albaqara waa ka ilaahay ku tilmaamaya falaa junaaha calaykum lagu tilmaamayo idan wuxuu noqon lahaa xajku haddii sidii loogu talagalay loo isticmaalo meel dadka muslimiinta ee dunida ku nool oo dhammi macrad ay dhaqaalahooda ku soo bandhigaan macrad la isugu yimaado caalamulislaami waa la kala googooyey iniba dhan bay ujeedaa iniba dowlado macaaradooda waxay ku xidhan tahay reer galbeedka iyo waddanno kale laakiin xajku waxaa loogu talagalay inuu noqdo meel dunida oo dhan waxa muslim joogaan hantida ay ku soo bandhigi karaan cid waliba waxay soo saarto cid waliba symbosium la isugu yimaado oo macrada oo cid waliba ay keento maxay dhaqaalahay wadatoo dhan xajku waa meel loogu talagalay ummadda muslimka madaxdeedu inay ku jirto isugu timaado oo ahdigii saxaabada iyo cumar wilaayaadka islaamiga dadka haysta oo dhan buu odhan jiray kaalaya shucuubta muslimiinta oo dhanna kaalaya wixii cabanaya halkaas ugu garraqi jiray wixii bolosiya la isfaraya dunida waa shir caalamiya oo isugu imanayaan qaadat ilumma xajkuba iyo culammadii hore waxay u haysteen inuu yahay meel la isugu yimaadaan alculamaa culammada muslimiinta ee dunida ku kala nool ee ninba fanni ku takhasusay ama aqoon dheeraada u leeyay xajkaa la beegsan jiray inaad sheekh hebel kula kunto oo markaa ciddii fanni gaara lagu tuhmaya ay dhigto wakhtiga xajka la joogo waayo culamada kale intay isugu yimaadaan haddaad kutubulxadiid akhrido makaan akhrido waxaad arki un iyadoo taraajumta uu leeyahay dabeetana wuu xaj tegey halkaas wuxuu kula kulmay sheekh hebel iyo sheekh hebel iyo sheekh hebel iyo sheekh hebel oo waxaa kaga soo qaatay ama waxaa ka soo bartay
xajku waa meel ay isugu yimaadaan aqoon-yahanka muslimku way aqoontooda guud ahaan ay isku weydaarsadaan ama ku wada hadlaan waxay leenahay xajku waa meel ay shucuubtu ku bractigarayso dhaqanka islaamiga caadiga ah halkan marka ay joogno nin waliba guri gaara buu iska leeyey xataa hadday carruur iyo reer kula joogaan markaad qolkaaga gasho odaygiibaa hurdaa la yidhaahdaa wada aamusa xajku waa nololtaa ka gedisan meel baa isugu imanaysaan bannaan baa dadkao dhammi seexanaya mid jirraqsanaya iyo mid salalaya iyo mid khuurinaya iyo bannaankaasaa dadkao dhammi wada hurdaa waa meel ay midnimada iyo sinaantu ka muuqato laba maro isku noocaa dadkao dhammi sitaa dharka waxyaabaha dunida loo qaato waxa ka mida bay yidhaaheen shaarra inuu noqdo calaamad astaan dabaqo waliba dhar gaara bay xidhataa dabaqo waliba bini aadamka ka mid baa dhar gaara siyaasiyiintu dhar gaaray xidhaan culammadu dhar gaaray xidhaan askartu dhar gaaray xidhaan waxay yidhahdaan waa shaara waa astaan bay yidhahdaan waa kuwan qolada psychologigu yidhaahdaa dharka ma inagaa xidhanna mise isagaa ina xidhay yidhaahdaan tajriba Bristol University ay ku sameeyeen oo tajaaribta caanka ah arday jaamacadeed baa waxa la geeyey xabsi dabeetana waxa la yidhi waxa la rabaa qaybina inay maxaabiis noqoto qaybina askari jeel noqoto waxaa la rabaa bal psychologiyada bini aadamka waxa iska beddelaya in la daraaseeyo qaybna maxaabiis baa laga dhigay qaybna askari jeel baa laga dhigay waxaa loogu talagalay inay tajribadu socoto 14 maalmood laakiin dhowr casho markay socotayba waa la joojiyey waayo wax hayru caadiya ka soo baxay waxay yidhahdeen behaviorkii ardaduba wuu isbedelay markii horena volunteer bay ku galeen walidalik ba waxay yidhahdaan dadku war dharka ma inagaa xidhanna mise isagaa ina xidhaa si kale aan kuu tilmaamo haddaad iminka khamiis iyo cumaamad xidhato oo suuqa martid waxaad soo odhanaysaa kubad ma cayaaraysaa waxaad soo odhanaysaa war nin weyn baatee dadku kula yaabin sidii waayeelka u soco haddaad se adigoo garan yaroo gacmogaaba sita iyo surwaal labada low jooga hadday kubadda kuu soo laadaan inaad gashaabay u badantay waayo waxaad soo aragtaa inaad tahay yani qofku wuxuu matalaa had iyo goor waxa uu rabo inuu actionka uu rabo inuu qaato dharku waxay yidhaahdaan markaasi waa astaan tilmaamaysa waxa gudahaaga ku jira waxa gudahaaga ku jira ayuu korkaaguna u eeg yahay saa daraaddeed ba waxaa la yidhi xajka markaad tagtaan dhar isku wada nooc aan dawaarba lahayn qaata dee dabaqada maalqabeennada iyo dabaqada siyaasiyiinta ee dhar gaaray xidhan jireen soo maaha kuwa masaakiinta waxa la yidhi isku darsama dhammaantiin halkan waxaa lagu barayaa dadka muslimiinta inay siman yihiin inaan madax iyo culamo iyo mijo iyo masaakiin iyo mid waxaystaa midna jirin ee dadku inuu siman yahay laba go-oo cadcad qaata bannaan qura wada seexda bannaan qura istaagoo ilaahay ku wada barya everythingna waa kuyu adugu 5 milyan oo qof meel ay isugu timi qiyaas cunadu waa kuyu kaadidu xataa waa kuyu ila dadku mar bay wada kacayaan mar bay salaada wada tukanayaan wax walba nolosha kuyu baa loo gelayaa waa training rasmi oo qofka la baraya maxay inuu qof muslima noqdo waa meesha lagu barto markaa iisaarka iyo iska horumarinta iyo naxariista iyo qofka jilicsan in la taageero iyo waxistarka iyo waxaa la rabaa akhlaaqiyaadka nadariga ah aynu islaamka marka hore laynoo sheegay waa dulqaadan waa caynkan ma dul qaadanaysaa ma ogashay adigoo kuyuu maanta o dhan ku soo jiray oday miskiin oo dhacdhacaya markuu yimaado inaad tidhaahda gal dul qaadanaysaa ma iska horu marinaysaa waa meel loogu talagalay qofku inuu dhaqanka islaamiga ee dhabta ah si practicala uu tajribeeye uu u soo barto saa daraaddeed waa mudaahara caalamiya waa meel intay muslimku isugu yimaadaan identitygooda ay caddaystaan meel kastoo la istaago tawxiid baa ka dhawaaqaya labayk allahuma labayk لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وإسلوغان للربو دونيدا مسلم كوردن إني موشيان دونيدا كلا يوشيغان 5 مليون وقف انت ميل سوغي مادان إني إسلوغان قورا قاضيان wax qura wada qaadayaan wax qura ku heesayaan wax qura tilmaamayaan waa meel lagu muujiyo midnimada ummadda islaamiga idan waxaynu tilmaamaynaa leenahay xajku waa meel waa siyaaxa haddaad tuurist rabto tuurisamka xaggee la tagaa dadku maalan imka waxaad maqlaysaa masar baanu tagnaa ahraamtii baanu tagaa ahraamta ma taqaanaa waa xabaalihii faraacinada
nimankii rabbaanu nahay lahaa meelahii ay dadka dhan ummad dhan bay addoonsadeenoo ku tala galeen inay xabaasha lagu aasi doono madaxweynaha in la dhiso. ahraamtan aad arkaysaa waa xabaalo, waa xabaalihii loogu tala galay boqorradan iyo dadkan in lagu aaso. marka intaad lacag ka bixiso ayaa waxaad tegaysaa maxay xabaashii fircoon, ama waxa lagu odhanaya qalinkii shakespeare wax ku qori jiraad soo arkaysaa. intaad london u dhooftaan oo museumka tagtaan baa lagu odhanayaa museumkan lacag baa lagu gelaya, maxaad arkaysaa qalinkii shakespeare ama kursigii shakespeare ama boqortooyadii victoria waxay ku fadhiisan jireen, waxaasaad arkaysaa. haddaba muslim baa tee ma rabtaa inaad soo aragto awalu beyt dunida laga dul dhiso cibaado loo dhiso. ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibaka baa ilaahay leeyahy. adduunkan aynu ku nooli gurigii koowaad ee loo dhiso cibaado ilaahay lagu caabudayo waa gurigaa ku yaal baa ilaahay leeyahy maka. meeshan kacbada dadku dhagax madow bay moodaan, maradan madowba saaran, war waa qol, meeshu waa qol yaroo dhisan, qol caadiya. xajarulaswadkuna meesha yare la dhudhunkanayuu koorahaasu ku jiraa, laakiin waa qol caadiyo albaablahoo la furo oo la geli karo oo lagu tukan karo. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy awalu beytin wudica linnaas. ma rabtaa gurigii koowaad ee dunida laga dul dhiso ee ilaahay lagu caabudayo waa kaa. maalan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya masjidu khiif, halka dhagax tuurka masaajidka dhinaciisa ku yaalla 70 nebi baa maray buu nebigu leeyahy. 70 nebi, meel 70 nebi ku tukatay ama martay ma rabtaa inaad aragto? ma rabtaa dhulkii nebi maxamed mari jiray calayhi salaatu wasalaam, ama cumar iyo abibakar iyo saxaabadii ay mari jireen, ama waxaad culamo maqashay shaafici iyo maalik iyo raggii ragga ahaa dhulkay mari jireen, ma rabtaa inaad soo aragto? ma rabtaa taariikhdii islaamiga ahayd inaad dib u daraasayso? waa siyaaxa, waa tuuristu. qofka muslimkii meel uu tuurist tago waa meesha ugu fiican oo taariikh dhan oo islaamiya oo uu dib u soo daraasaynayo. waa meel ay isugu yimaadaan ba le rijaalu lacmaal, maalqabeennada iyo dadka projectska watay wax kala iibsanaya. idan waxaan leenahay cibaadaadka markaynu sidaa u eegno, intaynan gaadhin aakhiro, iyo aakhiro maxaa lagu helayaa intaynan tegin? aakhiro ilaahay wuxuu inoo ballan qaaday in janno lagu helo, naarna lagaga baxsado. waana shayga ugu muhiimsan aynu raadinayno. oo soonka aad caafimaadid maaha danta koowaad aynu ka leenahay. danta koowaad aynu ka leenahay waxa weeyaan maxay? aad ilaahay ku caabudid oo alle ugu dhowaatid. waxaynu cibaadaadkan oo dhan u samaynaynaa inaynu ilaahay ku xusno, inaynu khaflada kaga